kulanti waxaana wanaagsan idinkiiba meel kastoo aad naga dheehanaysaan waa barnaamij gaar ah oo ku saabsan shir ballaaran oo ka dhacay magaalada London oo ay soo qabanqaabiyeen xubnaha sarsare iyo guddiga sare ee xisbiga midaynta iyo dimuqraadiyadda. munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay odayaasha aqoon-yahanka dhalinyarada iyo haweenka ee reer Baraabe ee iyagu degan magaalada London qaarkood oo ujeedada ay u qabteen shirkaasi oo ahaa laba arrimood soo dhaweynta wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Burci Maxamed Xamse iyo taageero ay u fidinayeen maamul samaynta saddexda gobol ee Bay iyo Bokool iyo Shabeellada Hoose. dadkii ka qayb galay munaasabadaasi oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka koobnaa ayaa waxaa dadkii ka hadlay kamid ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Burci Maxamed Xamse iyo Maxamed Nuur Xabiib oo isagu ah qorsheeyaha ama abaabulaha ahna ku-xigeenka koowaad ee xisbiga midaynta iyo dimuqraadiyadda. waxaa kale oo munaasabada ka qayb galay cali cabdi abukar cali baab oo isagu ah wakiilka arrimaha dibadda ugu qaabilsan saddexda gobol ee Shabeellada Hoose Bay iyo weliba Bokool. waxaa kale oo munaasabada ka qayb galay waa Khaliif Maxamed Rufaaci Sheekh oo ka tirsan guddiga sare ee xisbiga midaynta iyo dimuqraadiyadda. ugaas Maxamed Jaylaani G oo ah xogayaha xisbiga midaynta iyo dimuqraadiyadda. sayid abukar oo ka tirsan xubnaha sarsare iyo arrimaha bulshada. waxaa kale oo munaasabadaasi dadkii ka qayb galay kamid ahaa ugaas Qaasim Dinki oo isagu ka tirsan guddiga sare ee xisbiga midaynta iyo dimuqraadiyadda iyo weliba xabad waasugo oo ka tirsan odayaasha Soomaaliyeed iyo Cumar Shariif Mukhtaar iyo aqoon-yahan kale iyo odayaal kale iyo weliba dhalinyarada iyo weliba haweenka. munaasabadaasi oo si heersara loo soo agaasimay si heersaraan u dhacday qaabkan ay ahayd. idinkana waxaan umaleynaya waad ku faraxsan tihiin burcii in la soo dhaweeyo maanta halkan ayaan u nimid inay isagana yimaado oo feedback naga siiyo ama warbixintiisa naga siiyo. marka waa soo socda hadda waxaan bilaabaynaa marka hore waqtigii mar inaan jijiido waxaan bilaabaynaa qur'aankii waxaan noo aqrinayaa Cusmaan Xabiib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بما هو برعي الحمد لله welcome waxaad timid yani dadkaana ayaa ku dhex jirta anakana gacmo furan baan kuu soo dhaweynayna halkaan waxaan kuu soo dhaweyn dhammaan Soomaalida meesha jooga rag iyo dumarka. okay marka haddana waxaa waaye intaan waqtigii ana nabiyo waxaan bilaabaynaa marka okay waxaan bilaabay
كوينا معنا وقته برنامجي وعن حتى عن مبروكا كأم مبروكا مبكرة أنا هذا في سيدان محمد رفاعي سيدان دين شيء أودي أو حزب يسرى أو تكي كما قال كجير أو سكوين في أودي سوق وين مركز السجا أيام هذا وريكنا مركز محمد جيلاني صاحب التقاني أما هداكي أما محمد جيلاني كل شيء ما يعرف هذا هو كم يعني وغيرها هنا زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كتير كمان يعني كم هذينا يا دبينا هكذا نقص وخيبنا حفلة وين اللهم أموزين وزير الدولة وزارة الأرينا دبلة إدارة الصومالية مدن برعي محمد حمزة. يتفضل يعني وكل دبينا درجة درجة سنوية وحنقولنا تذكر وحيقولي شنو دولتنا نوغشك أريبهنا يعني حقوقنا أن كلنا دولة الصومالية سيدا بشر البرا وقت كل نهايات هذا يعني دولتين هذا أديك سوق وايو وحن يعني إذا شيءنا الحزب بداية ديمقراطية عن السيد مثلا كور هذا كورنا أن وسيدنا عن فرن هنا ملشق إنه وزير الدولة هنا برعي هذا هو حقوقه ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى كنت الله سعيد أبو بكر وصار مكمل هاي يعني بربانيش كوميونيتي فليتفضل. هذه آياتكم أحسنت هاي عندنا يوحنا فضل ولدينا علي عبد الله وكيل كأريمها يبدأ سدح بدو فليكن. سامحه دلتا دقلي برفلة خاصة دي أنا هاي دلتا دور شباب شو جينا دلتا اللي بتهش تحت الجبل لمن هذا اللي إحنا جبل وضع لمن دلتا وضع بقى يعني الحلبات ولا بسوبيا وأختي إنه إيه هاي يعني حسبي جناي الطاولة كلوي مفضال يعني خيانتي إيه وذاك موبايلنا وتدق ولا أباهنا
دنت دتك قبل شمال أو في بين جبت أسد على قبل فكرة الواقع تاجر فكرة ده أسد على قبل فكرة سليم الواقع هل تاجر يعني هديهم أنا قبل شمال أو تاجر بوت هي تاجر بوت هي تاجر جديد قبل مدير الوزير ما يقول ذلك يعني دولته يو مدحده إن أمتنا قبل شمال أو يعني 100% اللي تاجر سنين يعني تصدق الجبل وفق البيت الا بشوف هاز يدك على الاعلى هاز يدك على الجبل ليه جبل او مارتب يعني احنا بدو على الفيديو او يعني كتاب جري كل في الموضوعين كده يعني هي القويه الكبرى هي القويه الكبرى تحت الجبل او الجويك بركه بايع بارنا انه تاجر له سيدي الكنيسه لهاي ومده فلنا بسوق لهاي صدق الجبل لمن كان او ارمها ولا حوايا نحن لا تصبر ولا انهم يرونه بعيد ولا له قريب لكن كل بلدان وديو هاي يعني تتمايا ديرا تتمايا ما بتدميو شيء حتى لما تتمايا هوانا اللي يدها ما ولا تسال تاس وصودا سنه ما باهنا صدق الجبل يقولوا تاجر تاس صدق تاني جبته بس البوعي ما يكون ذلك الدروب دوبياتس يعني يقولوا ديانك انا صدق الجبل وبالله توفيق haddana waxaan u wareejinaynaa qaasim diinki uu ka mid yahay asagana ururkii oo la asaasay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي waxaan isku imaanay maanta inaan soo dhaweyno wasiirkeena Xamza Burci wasiir gabdhaha Soomaaliyeed oo masilaya shabeellada hoose hadal badan ma hayno meesha waxaan soo siiyo waqti waa yar yahay waa salaamintii dhammaantiin salaan kadib xisbigan muddo 2 sano oo ordaya 2 sano waa hal mar aan isku imaanay halkii marna weli wax go-aan ka hayno mayno laakiin hadda waxaan rajaynaynaa insha allah agaasimaha guud wasiirkeena inaan u dhiibno arrimahan inuu la socdo oo asaga noo fududeeyo sidaa xisbigan oo loo gargaarsiiyo arrinta kale oo la sheegaya xisbiga dhexda gobol runtii waxay ahayd waqti hore dhexda gobol ayaa dhacday hadda laakiin waxaa la keenaynaa insha allah 3 gobol inaan ku wareegno oo aan eegno oo aan siino waqtigeena iyo dadkeena oo degaan shabeellada hoose oo dhan marka sidaa darteeda waxaan la keenaynaa wasiirkeena inuu noo gaarsiiyo dowladda inaan 3 gobol aan si badbadeena cadaalan ku nahay wasalaamu calaykum waxaan siinaynaa khadiija sheekh barbaami oo asag iyadana usoo imada meesha maartino Waxaan
guddiga geedkan ururka madam ayaan u dhiibaynaa isagana hadalkiisa soo السلام عليكم. عليكم.
schools in soomaalida loo dhiso waxay u xawilaan in xagga caafimaadka soomaalida lagu daryeelo waxaa loo xawilaa in systemka telefoonada waxaasiyo in loo hagaajiyo hadda waad ku warqabtaan oo malaynayaa inaan leenahay telecommunication systemka ugu fiican africa yaa waxaa sameeyey qurbajoogta diaspora idinka ayaa qayb weyn ku ahaa taasaan rabaa inaan la socodsiiyo waxyaala kale aad samayseen waxaa ka mid ah shirarka xataa la sameeyo oo dib u heshiisiin ah dowladdan hadda aniga aan ka ahay wasiir haddaan shirar dib u heshiisiin la qaban lahayn oo ay muxuu ahaa ay abaabuleen shirarka dadka diasporaha jooga qurbajoogta waxaan leenahay heerkan hadda aan marayno lama gaari lahayn marka door weyn ayaa kulaha aad ku leedahay populationka yani qurbajoogta waxay gaaraan ilaa 1 milyan iyo bar hadda waxa kuwa qaaradaha adduunka dhan soomaalida waxay gaaraan ilaa milyan iyo taas waa mid waa boogsiinaya waxaan rabaa kaliya inaad la socodsiiyo in bisha juun 2022 waxay ay soomaalida ay sameeyeen urur oo la yiraahdo waxaa global Somali Diaspora Organization waxaa urur oo diaspora laakiin waxa igu maqaale soomaalida shabeellada hoose iyo gaar ahaan soomaalida degmada Baraha aad ay ugu yaryihiin kama qaybgelin abaabulka shirkaas hal qof kaliya ayaa ku arkay qofkaasna waa ku mahadsanaya runtii inuu tegey waxa waa Ahmed Ali Omar Sheego Ahmed Shira lahaa Ahmed Shira waxa waaye ciidadayda ayshi siyaasi weyn ayaa dhalay Ali Omar Sheego waana ku mahadsanaya runtii inuu shirkaas ka qaybgelay asaa noo jooga laakiin idinka inaad ka qayb gashaan wuxuu ahaa ururkan hadda la sameeyey aad iyo aad ayaa muxuu ahaa loo baahan yahay waa intaas okay maxaa laga rabaa hadda anfiiri remittances waa sameeyey xawaaladaha iyo ururkan iyo iskoolaadka aad dhisteen iyo lacagta areeraha aad u direysaan okay waxaana waa samayseen laakiin hadda maxaa laga rabaa marxaladan hadda maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa waxaa ka mid ah maalan number 1 waxaan ku bilaabayaa يعني نبتقلية الصومالي وسأبني الصومالي إلى محاها دور وين أكل هذا خاصة تذكينا إذنك وحوها الشباب هذا فاصل يقدر عن دول البراء سيد ولا هذا كتاب مثلا الدور هذا فيري ذك وحير هذا لما هو ذك وحير هذا ذك قدر لما الشباب وحاولوا بدل صومالي لما يمكن ما مليين minorities يعني كثيرين لما ترمي لكن minorities والله مثلا ذكر أنا وحلا باش شباب وحاب بس أقول هذا الجديد حلا 4.5 ذكر قدنا لما محاها أي شيء أورك كان هذا الشباب كثير سأذكر هذا هو حاول بدل باش الشباب أو بدل ذكرنا أو بدل عندنا قبائل وين مركز قاتل مثال هذا أوقاته وحافظنا شباب وحلل وحاوبنا قبائل كثيرة وهوية أيام كجرا مع شباب مركو والنوبة هي موت اللي سويديو صراحة كاري إن ذكر سرير إلى أي نقطة ذكر العلماء شباب محاكم للصواب أنا واحد من وين هذا قال لك وحيلين صواب وحاكم له شغلات قفك هدوس شغل هذا وحول ذلك التائل والنظر على الحسب النظر ومن قفك هدوس سكول هذا ولو لماذا وحنا عليك سكول عشان ما ليس أنا سكول فوق هذا كان صوبي أوروبا واقع هذا هدوس الأسبوع هذا أنا لا أسبوع كم بسنة هدي لا يفسر ولو يسا يعني أنا لا أقول فوق هذا وحنا كارجنا من محاها عليه طبعا كان كسوبير أوروبا عليه يعني ما أساعدك كذا إلى يمكن ما كنا إلى وقت النقطة الشباب حل النور سيلو إلى مرحلة حل سيلو الكلام وحلوا الكلام إنه شقول له أبو ذكر إن سكولات النور يسوي كلامنا إن محافظ سودان لون يصدقني هدي أنا محافظ سودان لون يصير طبعا وحيرة عيان
schools la dhiso in cusbitaal la dhiso in muxuu ahaa dadka faqriga ay ku jiraan laga saaro sidee la heli karaa matalan hadda school see loo dhisi karaa ka dhig bal dadkan muxuu ahaa soomaalida baraawa sidee u dhisi karaa school sidee ay cusbitaal u dhisi karaan aniga 2 sano ka hor marka aan shir noocan oo kale aan ka qeybiyo oo muxuu odayaasha oo meesha fadhiyeen ay qabanqaabiyeen waxaa ihi haddii qof kasta oo reer baraawa هذا دقمة البراءة فيها كلام محمود. تقول له استمر الله. دقمة هذه أقف كستورير براءة وكونه هذا وحينه على إلى توم كونه لله. هذا قف كهل قاوم كلي بالكستور بشيء. بيش ما قال. توم كونه قاوم. سواء سنة كنا. هو اللي بقى. هو اللي بقى توم قاوم almost $200,000. سواء هل قاوم لعب بالمئة. محلو سماوة يرى لها أنا رد يا رجال محلو سماوة حساب محلو سماوة صندوق محلو سماوة محا المال خف وسحنساري وإنه حلقة وبيكسر أوكي هذا أنا أنا يسوع إلى حد التجربة وأنا واحد قوانا معها مقالة يعني إلى واحد قوانا خف كنا واحد قوانا الملك حتى كم مقنعة هذا التجربة ذكر أيام كنت قاعد يعني proposal كده عربينا كده نحسابكم اللي جيت انا اروح بقى الى الحليب عليه قضيات وحاحد سميسان كل سياسي واحد شيء يا ذلك الصومال كله اللي لكن غير فرا معلش غير وصمر أورير أو حركة أور كشتاء يعني حرمتها مركو شباب وحسن مركو كانت دموي كبار كشتاء أور كاس يقول على يعني جدوي كأور كاس يقول على أنا ذكر الأساس السؤال ما كان كونسنتريت لكن هو حاط على هذا شابتر مريكان شابتر كندا شابتر كينيا شابتر ميراسا أوركاس جودي في سوبرماركت سيدي لو هو مريكان براوي في مشاكل غير براوي ليش غير سيدي لو حل هو مريكان إنت سلا تكفي كذلك حال لها تستعيش غير براوي ليش غير كله لا غير وحل إيه كتير أستراليا كله أمريكا كله نرويج يوروب كله يعني آخرين الله هذا ولا إلى لولا سنة مرة وحواي العكس كأوريا كل ردت كنا أنا وحط الدولار وهل دولار هذا لو كتير كتير أحلى وسهل ستة حتى كتير كتير so much the better مرة تاس هنقول دلالة أوركاس يوحنا على سبيل أريد أتكلم عن ربنا ليش وحاول إنك محقق على الدراما هذا ذلك اللغة هي غير لي الله يسلم عليك ذلك مرة قوري وحاول ذلك الشباب كله يا ذلك الشباب وحسن محقق قول في وهي غير عليه الله يسلم
League ayaa ogal, African Union ayaa muxuu ahaa ogal, marka aniga wax khiyaarkay ma hayo ya waa muxuu ahaa waa inaan ogolaanaa waana ku mahadsantiin idinka inaad taageeraysiin muxuu ahaa saddexda gobol waxaana u gudbinayaa madaxweynaha iyo prime ministerka waxaana u sheegi doonaa in Soomaalida shabeellada hoose waxaa waaye waxay ay taageerayaan saddexda gobol anaga marka idinka yani waxaa reer baraawo ahaan ya dalka maslaxada aad ku qabtaan maxaa waaye haddii ay noqoto maslaxada weyn aad ku qabtaan oo aa siyaasiyiinta digli mirifka aad ka maqlo waxaa waaye magaalada baraawo waxay noqon kartaa degtadda saddexda gobol taas wax weyn waay ya human security, amniga bini aadamka waxaa lagu heli karaa idinkoo aad